Bismillahir Rahmanir Rahim waxaan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka ugu doorkaroon ee channelka gunta wararka qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo bahdishay Kenya iyo xiisadda labada dawladood oo sii xumaatay ra'iisul wasaare Khayre oo markii ugu horeysay ka hadlay xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka duqa Muqdisho oo Mareykanka hubka magaalada lagu dhexwato soo saaray kulamadii lagu qancinayay Yuusuf Dabageed ee ka socda beledweyne oo mar kale fashilmay gudoomiye Maxamed Mursal oo kulan la qaatay guddigii uu dhawaan magacaabay iyo guddigaas oo safar ku tagi doona Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb iyo Soomaaliya oo safka hore ka gashay wadamada si qasaba dadka shacabka ah loo barakiciyo intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorkaroon ee channelka gunta wararka markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan daawad haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelkana waxaad inoogu reebtaa aragtidaada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka uu soo hagaagayo ra'iisul wasaare Khayre ayaa isbarbar dhig ku sameeyay heerka uu gaarsiisan yahay calaaqaadka labada dawladood labadii sano ee la soo dhaafay wakiilo ka socday maamulka guud ee hay'adda horumarinta Mareykanka ee USAID waxay ka wada hadleen Xasan Cali Khayre dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda ammaanka deen cafinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii hore ee labada dawladood u wada galeen waa dawladaha Mareykanka iyo sidoo kale Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay dib dalka ugu furanayso xafiisyadii ay ku lahayd Soomaaliya xilligii dawladii militariga ahayd waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay qorshaha deen cafinta Soomaaliya iyo dadaalada kala duwan ee socdo sidoo kale waxa uu tilmaamay in haddii deen cafinta laga caafiyo dalka fursad farabadan oo maalgashi uu heli doono Xasan Cali Khayre ayaa si cad u sheegay inuu soo hagaagayo xiriirka taariikhiga ah ee u dhaxeyn jiray dawladaha Soomaaliya iyo Mareykanka gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Iliisow ayaa soo saaray digniin karana kooxaha hubeysan ee dadka shacabka ah ku dhibaateeya degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiye Iliisow ayaa sheegay inay jiraan kooxo hubeysan oo ay u gudbiyeen xeer ilaalinta kuwaas oo dhibaato badan ku haya shacabka ku nool qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir duqa Muqdisho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay gacan bira ku qabtaan kooxaha hubeysan ee ku sugan degmooyinka Dhalkiinle iyo Kaaraan oo uu sheegay inay dhibaato ku hayaan shacabka waxa uu ka digay in kooxahaas ay sii wadaan dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka labada degmo ee Dhalkiinle iyo Kaaraan ugu dambeyn duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in kooxahaasi ay u abaabulan yihiin qaab maleeshiyada isla markaana talaabo cad laga qaadi doono waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu u gudbiyay xeer ilaalinta dhibaatooyinka shacabka sidoo kalena uu la wadaagay dukumiintiyo waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iideysto shirarkaas amniga aan galno waxa ka soo baxay degmooyin qaarkood inay jiraan dad shakhsiyaad ah si maleeshiyada u dhaqma oo dhib ku haya bulshadii oo ay ka mid yihiin degmooyinka Dhalkiinle iyo Kaaraan ayagana shakhsiyaadkii ayaga oo loo soo gudbiyay waxaan u gudbin doonaa xeer ilaalinta si tallaabo ugu adag looga qaado bulshada waxaan rabnaa inaysan ka cabsan ka xishoon cid mooryaana maleeshiya ee dhib ku haya degmada iyo xaafadda in aan meel uga soo wada jeesan waa dhamaatay waqtigii magaaladan dad qori wata ay maamulayeen waxaa jira maanta nidaam dimuqraadiyad iyo dawlad oo dawladii shacabka ah waxaan rabnaa shacabka inuu kaalin ka qaato sugidda amniga annagana waxaan ugu ballanaa ciddii shacabkaas dhibaysana meel uga soo wada jeesan waa mahadsantiin warbaahinta Kenya ayaa warbixin ka qortay wax u muuqda bahdil ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ku sameynayso dawladda Kenya wargeyska The Standard ee ka soo baxa Kenya ayaa muddo 2 bil ku dhaw Soomaaliya ka sugaysa jawaab balse ilaa hadda wax jawaab ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya ma jirin taas oo keentay in Kenya ay ka carootay jawaabta ay Kenya ka sugayso Soomaaliya ayaa la xiriirta kulankii 3 bishii Abriil magaalada Nairobi ku dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee dawladaha Kenya iyo Soomaaliya kulankaas ayaa la sheegay in labada dhinac ay isku raaceen dhowr qodob oo loo diiwaangeliyay hayeeshee Kenya ayaa kadib qodobadaas kulanka lagu diiwaangeliyay u dirta Soomaaliya si ay u soo xaqiijiso una ogolaato si markaasi dib loo shaaciyo si kastaba Soomaaliya ayaa ilaa hadda wax jawaab laga helin sida ay Kenya sheegtay
waxaana Kenya ay ku eedeynaysaa Soomaaliya inay doonayso in xiriirka wanaagsan iyo wada hadalka u dhaxeeya labada dowladood inuu xumaado. ilaa iyo hadda ma cadda sababta Soomaaliya aysan u ansixin qodobada kulanka, balse waxaa la rumaysan yahay inay ku qanci weysay habka ay Kenya u dhigtay oo ay ku jiraan waxyaabo fara badan oo aan laga wada hadlin. sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marnaba ogoleen in wax gorgortan ah ay ka gasho muranka biyaha ee labada dowladood, taas oo ay horey u sheegtay inay ka warsugi doonto oo kaliya go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Kenya ayaa walwal xoogan ka qabta kiiskan, waxaana khubaro dhinaca badda iyo diblomaasiyiin ay horey u sheegeen inay u badan tahay in Kenya loogu guuleysto dacwadan. dhinaca kale, aqoonyahan Cabdullaahi Nuur Xaashi oo degan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa carabka ku dhuftay in Kenya ay ogaatay kadibna ay sahmin sameysay kheyraadka faraha badan ee ku jira biyaha lagu muransan yahay, sidaasina ay ku damcayso biyaha Soomaaliya. aqoonyahankan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in shidaalka dabiiciga ah ee ku jira biyaha uu ka fudud yahay marka la soo saarayo kan bariga, taasina ay qayb ka tahay wax Kenya ku riixaya sheegashada biyahaasi Soomaaliya. ICJ ayaa la filayaa in go'aanka madambeysa ay ka soo saartay kiiskan dhamaadka sanadka 2019. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa la kulmay guddi xaqiiqa raadin ah ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen, kuwaasoo ka hadli doona warbixinna ka soo diyaarin doona dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, taasoo lagu laayay dad shacab ah oo wax aan galabsan. guddigan oo uu horkacayo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka mid ah xildhibaano, salaadiin iyo malaaqyo ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed. gudoomiyaha golaha shacabka ayaa guddigan kula dardaarmay in warbixin dhab ah ay ka keenaan dhibaatooyinkii ka dhacay Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb. sidoo kale waxa uu amaanay sida madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed uu diyaarka ugu yahay inuu la shaqeeyo dowladda dhexe iyo sidoo kale golaha shacabka. waxa uu xusay in matalaadda shacabka loo baahan yahay in laga dhabeeyo. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa weli ka socda kulamo kala duwan oo xal loogu raadinayo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed. wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa si gooni ah waxay ula kulmeen madaxweyne Waare iyo Yuusuf iyagoo ku wada sugan magaalada Beledweyne. kulamadan ayaa ah kuwa la doonayo in lagu soo afjaro xiisadaasi, waxaana Yuusuf Dabageed uu ku adkeysanayaa in gudoomiyaha sharciga ah ee gobolka Hiiraan inuu isagu yahay, sidoo kalena Waare uusan xilku ka qaadi karin. wasiirada iyo xildhibaanada oo maalin ka hor la kulmay Yuusuf Dabageed ayaa ka dalbaday inuu xilka wareejiyo, ha yeeshee taas waa uu ka biyadiiday, waxaana si cad u sheegay in weli uu yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. xaaladda magaalada Beledweyne ayaa weli waxaa ka taagan caqabad, waxaana sidoo kale Beledweyne ku sugan gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan ee la magacaabay iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. xiisada ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa sababtay in dagaal uu ka dhaco deegaanka Kalabeer ee duleedka Beledweyne, waxaana dagaalkaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay taliyihii qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneel Maxamed Mucow Xalane. ugu dambeyn, warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ayaa shaaca looga qaaday in sanadkii hore ee 2018 dad ka badan 71 milyan oo qof in si xoog ah looga barakiciyay guryahooda. warbixin sanadeedka qaramada midoobay ayaa 5 dal ee ugu horeysa waxaa ka mid noqday Soomaaliya, iyadoo ay safka kula jiraan wadamo kale. wadamada kaalinta koowaad iyo labaad ka galay waxay kala yihiin Syria oo gudaheeda ku barakicisay dad gaaraya 6.7 milyan oo qof, iyo Afghanistan oo ay ku barakaceen 2.7 milyan oo qof. Koonfurta Suudaan waxaa ku barakacay 2.4 milyan oo qof. Myanmar waxaa ku barakacay 1.1 milyan oo qof, halka Soomaaliya ay ku barakaceen nus milyan. qaramada midoobay ayaa sanad walba soo saarta warbixin sanadeed la xiriirta barakacayaasha caalamka ee ku barakacay dagaalada iyo colaadaha kala duwan ee ka aloolsan wadamadooda. guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen channelka Gunta Wararka. daawada haddii aad ku cusub tahay channelkan, waxaa saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka, waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.